dhiba iftiinka iyo dabeesha indhuhuna way ilmeeyaan gaar ahaan markii aan isticmaalayo mobilka kombiyuutarka TV-ga ama projectorka maxaa sababa su'aashaas horta iftiinka ay dhiba iyo dabeesha waxa waa cabashada ugu badan ee dadka da'yarta ay isbitaalada noola yimaadaan markii la isku soo ururiyo sababaha keeni kara cabashadaas iftiinka ku dhiba dabeesha ku dhibta indhaha ku xanuuna ama guduuta waxyaabaha noocaas oo isu wata marka la isku keeno waxaa lagu soo koobi karaa 4 sabab waxa la xiriira indhahaaga iyo araggaaga caafimaadkooda 1 waxa la xiriira caafimaadkaaga guud 2 iyo 2 kale oo habdhaqankaaga la xiriira waa ayaga sheegi doona tan koowaad caafimaadka indhahaaga haddii wax ka qaldan yihiin tusaale xasaasiyad badan haddii aad qabto cabashaas oo imaanaysa haddii indhahaagu ingegi leeyihiin ama waxa dry eye la ay jiraan cabashaas oo imaanaysa haddii araggaaga uu hooseeyo gaar ahaan aragga fog xanuunka loo yaqaano myopia oo kale dadka myopia-da waxaa lagu yaqaanaa pupilka ama duleelka yar iftiinka indhaha uu ka galo isha uga gudbo way ka weyn yihiin dadka kale marka iftiin ka badan iftiinkii dadka kale gelaya ama loo baahnay ayaa gudbaya marka iftiinka inay dhibsadaan dadka myopia-dana waa lagu yaqaanaa guud ahaan marka haddii araggaaga iyo indhahaaga caafimaadkooda ay wax ka qaldan yihiin cabashadaas u imaanaysaa waa tin koowaad tan labaad caafimaadka guud gaar ahaan madax xanuunka noocyo ka mid ah nooca migraineka ama goonjabka ama dhanjabka qofka si u taqaano wuu leeyahay cabashadaas gaar ahaan dhinaca dhibaatada ay jirto sidoo kale cluster headache xanuun leh madax xanuun nooc ka mid oo la yiraahdo wuu leeyahay cabashadaas marka guud ahaan madax xanuunkana sidoo kale cabashada noocaas uu keeni karaa tan saddexaad oo habdhaqanka la xiriirta waxay tahay isticmaalka xad-dhaafka ah ee aaladaha kombiyuutarka iyo mobilka iyo waxyaabaha lamidka iyo TV-ga ayagana sidoo kale way keeni karaan oo indhaha way ku daalayaan dhibaatadaasna maaragtay way imaanaysaa waxaana sababtu waxay tahay isha bini'aadamka waxaa lagu talagalay ama indhaha waxaa lagu talagalay daqiiqadiiba ku dhawaad 20 jeer ama 18 jeer inay libirsato qofka marka mobile ama kombiyuutar indhaha uu ku fiirinayo waxaa yar inta uu libirsanayo indhihi way engegayaan marka si fudud ayuu caabuq iyo waxyaabahaas ugu nuglaanayaan dabeesha ma xamili karaan marka waa caadada saddexaad ama dhibaatada saddexaad ee keeni karta cabashadaas tan afaraad waxay tahay dhafarka badan indhuhu waxa waaye way daalayaan madaxa dhama daalay jirka dhama daalayo iyadana way leedahay marka afartaas mid uun bay noqon kartaa yaa ima in indhaha way jiran yihiin idaw u baahan yihiin yaa ima in araggaaga hooseeyo sidoo kale okiyaal iyo daw wax u baahan yihiin waa tan koowaad 2 yaa ima in madax xanuun iyo waxyaaba noocaas ay jiraan 3 waa in dhafarkaagu badan yahay 4 waa in isticmaalkaagu aaladaha internetka loogu isticmaalo uu aad maaragtay u sareeyo afartaas oo ay soo koobayaan ومنصنتا دكتور waxaan u maleynayaa in ay fahmeen jawaabta sidoo kale dhowr qof ay ka mid yahay Yaasir Ismaaciil Maxamed oo jooga magaalada Boosaaso waxay ku weydiinayaan doctor waxaan nahay arday markii aan jaamacadda joogo qoraalada sabuurada ma arki karo sidoo kale iftiinka mobilka uu dhibaa maxaa sababa su'aasha wararka hadda waxay cadeynaysaa su'aasha koowaad jawaabteeda dadka araggooda uu hooseeyo way leeyihiin maaragtay xanuunka wiilkaadu wuxuu ka sheegtay jaamacadda inuu maaragtay sabuurada arki karin da'daas marka qof jaamacadda ka da'diisa waxa ugu badan ee aragga hoos u dhigaya ee sabuurada uu arko ka hor istaagayo waa maaragtay xanuunada refractive error la yiraahdo ee u baahan okiyaalaha marka iftiinka dhibana wuxuu ka imaanayaa sababtaas araggiisa hooseeyo haddii myopia uu yahay pupilkiisa inta badan dadka kale ka daalay macnaha ka ballaaran iftiin badana galaya oo ka badan kii loogu talagalay wuu dhirsanayaa marka qofkaas wuxuu u baahan yahay inuu dhakhtar tago si loo cabiro araggiisa hadduu u baahan yahay loo soco uba xasan oo joogta Hargeysa waxay ku leedahay indhahaygu waxay dareemaan xanuun lafta ah amba gudaha markaan wax eegayo waxa kale oo jirto markaan wax eegayo ilaa aan isku soo dhaweeyo waxba kuma arko waxaad moodaa in shucaac iga horeeyo markasta maxaa sababa xanuunka indhaha ee gunta hoose ama qaybaha hoose dambe haddii cabasho kale aysan la xiriirin badanaa waa jiraan waxyaabaha halis oo matalan aragga hadduu hoos u dhaco iyo cillado kale way jiraan laakiin cabasho kale haddaysan jirin oo kaliya xanuun gunta uu yahay isla markaana gabadhu waxay raacisay in araggeeda uu hooseeyo waxna ayna arkaynin ilaa indhaha marka isku soo ururintaas indhaha waxaa la yidhahdaa pinhole effect qofka myopia-da lagu yaqaanaa pinhole waa duleel yar oo indhaha qofka okiyaasha u baahan loo geliyo isla markaana arag uu siyaadiyo waxaa lagu ogaadaa qofka okiyaal ma u baahan yahay mase uma baahan qofka caadiga marka asagaa pinhole samaysanaya duleel yaroo samaysanaya macnaha indhihi isku soo ururinaya si wax u arko marka waa calaamad aad muhiim ugu ah in qofkaas okiyaal u baahan tahay
sidoo kale dhowr qof ay ka mid yihiin Aasiya Xuseen oo joogta Kenya, Khadra oo joogta Kalkacyo, Marwahooda Cabdi oo joogta Hargeysa. waxay ku leeyihiin aragayga wuu wanaagsan yahay, ookiyaalo ayaa laga soo qoray. haddii aan joogto u xirnaado aragayga dib miyuu u soo noqonayaa? haddii aan iska daayo ma sii xumaanayaa? haddii aan qaato la qabsi miyay leeyihiin? horta xanuunka aragga hoos u dhaca ee ookiyaalaha lagu soxo waxaa waaye waxa keenayo sawirka shabakada dambe inuu ku dhaco la doonayay ayaa wuxuu ku dhacayaa meel ka sokaysa ama ka xagaysa shabakadii kuma aadana. sawirkaas marka si uu shabakada ugu dhaco laba khiyaaraa furan. yaa imaa in ookiyaalo lagu xiro oo sawirkii lagu aadiyo shabakada dambe, iyo imaa in ishaada wax laga bedelo. si kale ma jirto oo maaragtay la isku soo dhaweyn karo. khiyaarka dambe ah isha in wax laga bedelo waa howlo adag, qalliin iyo laser iyo waxyaabahaas, laakiin inta badan waxaa la isticmaalaa waa ookiyaalaha. ookiyaalaha shaqadooda marka waxay yihiin iftiinkii gaari waa ishaada ama ka xageeyey ayay waxay samaynayaan, waxay ku aadinayaan shabakada dambe. marka waa wax qofku u baahan yahay, ugamana maarmi karo in howlo kale ama maaragtay ama qalliin kale loo sameeyo iyo waxyaaba noocaas. dadka waaweyn inta badan ookiyaalaha kama maarmaan. ilmaha yararka indhahoodu korayaan ama ay dheeraanayaan ama ay soo yaraanayaan ama weynaanayaan, ilmaha yararka fursad koritaankaas waa laga yaabaa inay ka helaan inay ookiyaalaha uga maarmaan, laakiin dadka waaweyn inta badan ookiyaalaha uga maarmi maayaan. marka ookiyaalaha ay xiranaysid indhahaaga sii daciifin maayaan, araggay kuu siyaadinayaan. la qabsina dabcan waaba u baahan tahay. haddii aad la qabsato waxaad u baahan tahay ayaad la qabsatay. marka waxaan u malaynaya ookiyaasha su-aasha la qabsi haddii leeyihiinna waa la qabsi waa waxaad u baahan tahay, dhibaatana ma lahan, araggaagana sii nuqsaami maayaan, lagana maarmi maayo. waa ookiyaal inaad xirato aad ku qasbantaha haddii mar lagu qoro.